asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawaad arday waxaan doonayaa casharkan inaan ka dhigno casharkeeni u dambeeya hadduu la yiraahdo aan isku daya inaan ku dhamaystiro halkan cashar oo noqon doona casharka 8aad marka soo dhawaada kankii ka horeeyay waxaan soo sameynay inaan testing ku sameyno API-ga iyo sida loo tijaabinayo sidoo kale hadda GitHub-kayga la socotana waan soo geliyay JSON-ka testing-ka ka sameyn karto kaliya API keys-kaaga ku bedel kadib uu ku shaqeyn doonaa marka waxaan kala doonayaa inaan tusiyo sidaan u sameyn lahayn PHP intii aan ku soo sameynay Postman sidaan PHP ugu sameyn lahayn marka doonayna PHP ku sameyno API request waxaan isticmaali doonaa wax la yiraahdo curl kan waxa lagu talagalay in lagu la hadlo URLs-ki API-ga marka waa function uu leeyahay PHP-da oo diyaarsan laakiin waa inaad ku shubataa curl extension haddii uusan kugu jirin hadduu kugu jiro haddii aad isticmaashay Samba ama Wamba inta badan uu la socdaa marka wax error kuma keeni doono waxaan sameyn doonaa inaan function cusub sameysano la dhaho process aan bixi doonaa payment function kasaas buu noqonayaa qolada hore ila socotay function sidii loo sameeyo hore usoo sharaxay marka koodkeena halkaas aan ku qoranaynaa waxaan sameyn doonaa marka u horeysa inaan soo qaadano user information-ka waxaan kasoo qaadan karnaa inaan kasoo koobiyeyno userka xagaas buu lacagta iyo wuxuu kasoo gelinayaa amountiga kaas waa formkii PHP-da aan kaga soo akhrinay HTML-ka marka kaa inoo soo koobiyey markaa noo keena hadda waxaan haysanaa userkii wax laga jaray iyo lacagtii laga jaray marka user amount and phone number markaa doonaysa PHP comment inaad qorto commentiga waxaa loogu talagalay inaad koodkaaga ku note garaysato si aad u xusuusato haddii aad kala ilowdo marka hadda comment waan sameeyay commentiga labada calaamad baa ka hormarinaysaa waxaan dhahay waxaa ii sameysaa commentiga wuxuu noqonayaa inaan ku qoray wax kasta xaggaa ku qortid koodka ma aqrinayo wuxuu doona ha noqdo waxaad ku qori kartaa ma saameynayo koodkaaga haddaan waxaan ku qortay xogtaas waxaan ku qortay in meeshaan wax ku yaala yihiin user information-ka xabad kale aan ku dari karaan leeyahay curl starts here way marka intaas sameyno waxaan sameyn doonaa hadda lacagtii waxaan haysanaa username-kii lacagtii telefoonkii laga jiray kadib waxaan sameysan doonaa function cusub waxaan sameysan doonaa horta variables-ka xagaan ku dhamaystirnaa iyaga dhan user information waxaa tirahaa description-ka API-ga aan raacin doono lacag bixin tijaabo waxaan kale u baahannahay inaan haysano request ID wuxuu noqon doonaa kan xagaan noogu jira kaa u horeeya u noqon doonaa sida marka hore idiin sheegay kaas wuxuu noqonayaa number anaga generate garaysanayno oo PHP aan ku generate garaysanayno marka variable cusub aan sameyno waxaan la ekeysiinaynaa waxaan dhihi doonaa waxaa inoo sameysaa random number waa function loogu talagalay random numberska lagu generate gareeyo wuxuu qaadanayaa numberskaaga halkay ka bilaabanayaan iyo halkay ku dhamaanayaan kadib intaa waxay u dhexeeyo random number ka sameynaya marka number dheer baan dooranayaa hadda waxaan dhahdaa 100,000 ka bilaaw ilaa 1 milyan gaarsiisa 999,999 hadda markastoo kan aan rangareeyo number wuxuu ii sameynayaa 1 milyan ilaa 100,000 u dhexeeya markastoo number cusub dooranaya it's macquul ma ahan ama waa adag tahay in numberka laba jeer uu soo noqdo request ID mar walba unique buu noqonayaa sidoo kale waxaan sameysan doonaa waxa la dhaho reference isagan reference sidaas la mid wuxuu noqon doonaa random number oo aan inaga u generate gareynayn every transaction waxaan xigi doonaa invoice ID isagana invoice ID-ga wuxuu noqon doonaa invoice-ka aad qofka u jaraysa ID-giisa isagana inuu number unique noqdo saddexdaas baan sameysan hadda waxaa inoo soo xigi doonaa inaan sameysano timestamp-kan wuxuu noqon doonaa saacadda ama xilliga API-ga la sameeyey marka isagana waxaan sameysan doonaa function la dhaho date oo PHP-da leedahay kadib date-ka waxaad dhexgeli doontaa date-ka taariikhda format-ka ay yeelanayso waxaan doonayaa inaan dhaho aniga YMD waxaan kaloo doonayaa inaan raaciyo saacaddii iyo secondkii iyo minute-kiiba waxaa tiraha IS
haddii intan aan ka reebo hadda wuxuu noqonayaa inuu isoo saaro 2022 bisha 6 dhowr iyo 20keeda. haddii intaan aan ku dar laakiin wuxuu ii raacinayaa saacadii iyo minidkii iyo secondkiiba. okay headkaasna kadib waxaa inoo samaysmi doona waxa la yidhahdo data. waxaan samayn doonaa array. so this array wuxuu noqon doonaa arrayga aan ku xareysanayno arrayga aan ku xareysanayno ii sheeg bodyga requestiga kan mujeedin halkan kan yaalo intaan array ahaan baan u qaadanaynaa. soo ma garan hadhow aan dhex raacin doonaa coralka marka arraygas baan u sheegaynaa bodyga isagaa inoo qaaday, laakiin waa inaan array ahaan u sheegnaa. json ma qori karna hadda halkan php array baan isticmaalaynaa. kan u horeeya wuxuu ahaa schema version markii la qoraayo xabadda u horeysaan qoraynaa kadib waan sii kokoobeysanayna. schema version keena waxaa tiraa 1.1 de markaan. okay so kaas wuxuu noqon doonaa softwarekan ama API-gan aad sameynaysid versionkiisa ama xaggu kula marayo. so mar walba server systemka update oo ku samaysid kan waa inaad update kala raacisaa si loo kala karto API-ga marka la isticmaalayo versionka applicationkaaga uu joogo. just waa ka tegi kartaa doonti ka reeb comma dheh. si noogu fudud waxaan samayn doonaa inaan kan badsano ilaa waxaa u baahanaa ilaa 4 xabo 2 3 4. ka labaad wuxuu noqonayaa request id. ka saddexaad wuxuu noqonayaa timestamp. ka afraad wuxuu noqonayaa channel name. so ka shanaadna wuxuu noqonayaa surface name. so surface nameka wuxuu noqonayaa API dash purchase. kana wuxuu noqonayaa web markaa kadib waxaan raacin doonaa hadda timestampka. so kuwan saddexdan labadan iraade waxay noqon doonaan variableski xaggan aan kusoo samaysana xaggan gelin doonaa. so kan waxaa gelisaa variableka markaa gelinaysa quotationka ma u baahnid waxaa tiraahdaa kaas request id. okay kana timestamp wuxuu noqonayaa variableka aan samaysana ee timestamp. okay hadda dibadda aan ugu noqon intaan waxaan samaysanay datadii aan ku qaadanayna bodyga API-ga. marka kan wuxuu noqon doonaa array. arraygan wuxuu qaadanayaa xogtan aan ugu talagalna bodyga aan xabad u dhexgelinaynaa. marka waxaa noo xigi doonaa inta markaa joogna mid kaloo isagan la yiraahdo kan uu ka duwan yahay kuwan kale. isaga waa array inside array nested array uu noqonayaa because xagga hadda eegto hadda kanaan joognaa moogtahay kanna isaga wuxuu sii leeyahay quotation kale uu sii furanayaa curly bracket kale. curly bracketkaas waa marka kan oo kale oo isagana internal uu sii dhexgelinaya. marka inaan tusii qaabka kaas aan u qorayn wuxuu noqon doonaa surface parameters markaan dhaho calaamadda sii sameey equal greater than kadib meeshii aan ku qorayay xogta sidii kuwaas oo kale haddana kan array kalaan furayaa. array kale markaa furo isaga arraygaas kalaan sii dhexgalayaa. kadib waxaan samayn doonaa intaan saa u fahamtaan ana mar walba waxaan jeclahay inaan waxay isku dhex toosiyo. okay indentationkaas aan naga hagaajinaya. so xaggan waxaan galaya emergent user id equal greater than comma. marka intaan ii qaad intaas la kordhisanaya 2 3 4 5 think kana 5 way. emergent user id API user id ku xigo API key. so qoraalada xaggan aan ku qorayno waa inay siday u qoran yihiin u qortaa sababta ma bedeli karno because API kuwan buu raadsanayaa hadhow. API key waxaa ku xiga payment methodkaas buu ku egyahay ka kalena array kale sii noqonaya. anyway marka xaggan aniga waxaan isticmaalayaa variables si aan loo arkin loginkayga.
xaga waxaan dhihi doonaa merchant user id so variablekaas uu igu qarsoon yahay api informationka api user id a igu xigo kan wuxuu noqon doonaa api key payment method kan waxaa weeye m wallet account dasoo isticmaalaya kan isagan wuxuu noqon doonaa array inside array kii saddexaad baad sii dhexgelina isku soo dhaweyle kadib waxaa tirahaa array kala fur kadib soo deji kan xankaa usii turki interde okay waxay noo qortaa haddana mid kale kan waxaa la yidhahdaa so kan horta magacaan ka saxno kan waa bayer info qofka lacagta laga qaaday xogtiisa xaggan lagu qoraya like telephone numberkiisana account number buu noqonayaa equals inoo furmarid kale phone numberka so qofka lacagta laga jarayo phone numberkan waxaan kasoo qaadanaynaa halkan aniga marka hore sii diyaarsana halkan waa formka telefoonka qofka meeshuu soo geliyay wey somaadan garan marka variable way kan ka reebanta so this one intaas buu qaadanaya wax kale ma u baahna kan waxaan samayn doonaa marka inaan arraygan ka baxno uu dhamaaday mid kale halkan oo kan la eg samey so for si noogu fudooda kan uu nii koobiyey sababta labadan isku mid way mogta bestide isla ekaysiin okay labadan isku same isla egyihiin da ahaan kan wuxuu noqon doonaa marka transaction info kan qaybtan wuxuu ahaa lacag bixiyey xaggan lacagta xogta ku saabsan like currency-ga lacagta amountigeeda iyo xasaal iska doonaya marka kan inoo kordhi isagana 2 3 marka waxaan samayn doonaa intaan markaa qorno kan u horey wuxuu noqon doonaa reference id na variablekaan soo samaysanay inoogu qornaa ref kaas isticmaalana variablekaas inoo generate garanaya id reference oo unique ah oo random ah waxaan xigi doonaa invoice id inaan soo samaysan isagan xaggaas saraan ku samaysanay marka invoice id aan dhahayna waxaa noo xigi doonaa amount oo ah lacagta qofka laga qaaday lacagtana oo haysanaa iyadana waxaan kasoo qaadanaa formka qofka uu gelinayo lacagta waxaa inoogu xigi doonaa currency oo noqon doonta lacagta nooca ay tahay waxay noqonaysaa lacagta dollar okay ugu dambeyn waxaa inoogu xigi doonaa description kan muxuu kalarkiisa nooca u noqda su-aal loo baahan in laga jawaaba kan baana xiran so color systemka sublime text waa inaad mar walba ku xisaabtantahay hadda haddii kaa ilowdo kanaa green blue noqonayo so waxaa fahmi kartaa inay qaldan yihiin kadib baa iska hagaaji kartaa dhag description-kan waa soo samaysana oo ka xagga sare noogu qoran desk waa inoogu qoran waayahay intaadaan dul marno datada arraygan ku wadanaa arraygan wuxuu noqonayaa haddaan soo dejiyo array wey waxaa ku dhex jiro informationkaas haddana waxaa kusii dhex jira xabad kale oo iyadana array kala sii qaadanayso xabadda waxaa kusii dhex jiroo kale labadan array midna bayer informationka midna transaction informationka marka haddii aan saa u kala qaybino waxay noqon doontaa qaybtaa hore in lagu qoro xog ku saabsan surfaceka isticmaalaysid versionka ee search systemkaaga requestiga xilliga la sameeyey waxaa iyo generalka loo maray intaas waa general intaan waxaa way unique waxay u tahay surfacekan parameterskiis tusaalaha inaa horta loginka sameyso haddana aa sheegto nooca uu yahay methodka wax ku iibsanayso lagu iibinayo marka methodkii la helo kadib haddana informationka qofka wax laga qaadayay iyo lacagta laga qaaday informationka lagu weydiinayo soo saab isku sii dhex galayaan okay isku dhejinta marka so hadda marka intaas waan dhameynay transaction informationka waan dhameynay kan ugu dambeeyo waa inaa komada ka reebaa isaga waxba kama dambeey kaa moogtahay marka labadan xaban waa inay kuugu xidhmaan kanna waa kii arrayga daboolay arrayga mainka markaas ku xidhan yahay so haddaa u fiirsato indentationkeyga kan isku toosan yihin kan isku toosan yihin kan waa daris kan isku toosan yihin so that should be okay now
hadda halkan waxaa xogta isticmaal lehno dhan waa diyaarsane waxaa inoo dhiman xogta inaan API-ga u dirno oo sidii Postman-ka hadda u shaqeyn intan waxaa samayn kartaa aniga casharka waxaan ugu talagalay waafi inaad ku barataan qofkii doonaya inuu system waafi implement gareeyo haddii imika aadan haysan information-kan soo qaado si walba ku heli kartid okay markaa soo hesho ku tababaro haddii kalena iska baro mar unba u baahan doontaa haddii kale u baahan tahay in waxa ay actually shaqeeyaan oo practical samaysana waxaa samayn kartaa inaad API kala isticmaasho sida kii weatherka maalinta dhawaan sameeyeen oo kale marka comment igu soo qor haddii u baahantiin inaan kala sameeyno si shaqadii oo dhacaysa u aragtaan I hope in API kiiga soo heli kartaan waxaan samayn doonaa marka wax la yiraahdo function la dhaho post data so post data waxaan u bixin doonaa xogtan xagan ku jirta waxaan u bedeli doonaa JSON kan waa PHP array so kan haddii aan isticmaalno ma inoo shaqeynayo sababta waxaa la doonayaa kan in sidaan laga dhigo oo la isticmaalo colonka aniga hadda waxaan isticmaalayaa sidaan baa u isticmaalayaa mogtahay waxaa la doonayaa inaan isticmaalno colonkan waxaa isticmaala JSON-ka so API-ga JSON buu yaqaanaa so waa inaan marka kan encode gareeyaa oo JSON u bedelaa so waxaa jira function la dhaho JSON encode functionkaas wuxuu qaadanayaa waxa la doonaya in la encode gareeyo waxa la doonaya in la encode gareeyo hadda waxaa weeye kanay ku qoran tahay data nooca u doonayna u encode gareeyo waxaa weeye JSON unescaped slash so inuu blue noqdaa markuu sax yahay marka hadduu purple yahay hadda qalad baa ku jira intaa markaan sameyn doonaa iska xireyna hadda okay hadda waxaan haysanaa datadeena waxaan ka dhignay JSON kadib waxaan sameyn doonaa inaan soo qaadano URL-ka API-ga URL-ka API-ga markaan soo qaadan waxaan leenahay https://api.wafibay.net/asm URL-ka API lagu dirayna waa kaasa waxaan sameyn doonaa wax variable laho ch oo aan dhihi doono curl-ka inoogu hay so curl waxaan isticmaali doonaa function cusub oo la dhaho curl init functionkan wuxuu hadda initialize ku sameynaya curl cusub ama curl-kan waxaa weeye qaab PHP da isticmaasho oo URLs-ka loola hadlo hadda wuxuu baxayaa PHP-deena URL-kan buu call gareynayaa kadib wuu la xiriiraya xogtan buu u gudbinayaa so this is a new function mar walba API la hadlayso inaad functionka curl initialization-ka ku bilowda markaa initialize gareyso waxaan sameyn doonaa curl wuxuu qaataa setup in la sharaxo headeriski loo sheego bodigi loo sheego inta haddaan sameyn doono intan inta kan markaa ujeedaan Postman-ka xaggan headers buu ku leeyahay xaggan body buu ku leeyahay xaggan authorization buu ku leeyahay xaggan parameters buu ku leeyahay intan weeye kan hadda aan sameyn rabno dhowr noocna u kala baxaan kan u horeeya waxaa noqon doonaa curl haddii aan qoro isaga ay dhammaystirayo dash waxaan dhihi doonaa set opt bracket baan u furayaa set optiga marka wuxuu qaadanayaa parameters kala duwan ama arguments kala duwan dhowr xabana u baahan kan u horeeya koobisanna waxaan ka dhigan doonaa 3 xabo setup-ka u horeeya waxaan dhihi doonaa soo qaada marka hore horta curl-kii aan initialize gareysay ch baan ku qaadanay waxaan isticmaali doonaa intan hadda kan header-kii waa http header serl curl opt http header kaas wuxuu la mid yahay kan oo kale wuxuu la mid yahay kan mujeedaan headerskaas uu la mid yahay header markaad doonaysa inaad post API-ga raaciso ka isticmaalaysaa aniga hadda kanaan doonayn waxaa weeye kan post field bodiga way markaad doonaysa inaad wax raaciso command haddana waxaad qortaa post datadan wax kale ma ahe arraygeeni PHP-da ahaa ee aan marka dhaweed encoding-ka ku sameynay ee JSON-kii ahaa baa xaggan ku daraynaa so this one kan ugu horeeya set optiga ah waxaan soo qaadanay curl-kii initialize gareysana kadib waxaan u baahannahay postiga bodiga API-ga inaan raacino JSON-kan
JSON kan waxa way wuxuu wadaa datada PHP array-ga ee API-ga uu isticmaalayo soo hadana ka kala furayna kana ch dhahdana kaan wuxuu noo qaban doonaa inaan ku qaadano header-ka kalabaad header soo qaado comma header-kan doonayna isticmaalno waxa way iminka inaan dhahno content type-ka isticmaalayno waa JSON so API-ga waxaan u sheegaynaa waxaan ku dhahaynaa waxaan doonaynaa content-iga ama qaabka aad ula hadlaysid API-ga ha noqoto qaab JSON ahaan sababta datadan u dirayno xaggan taalo ee aan JSON-ka ku encode garayno inaan u sheegnaa marka API-ga dhahnaa haddii kale wuxuu u isticmaalayaa qaab qaldan oo text plain ah oo qoraal ahaan marka waa inaan usii sheegnaa dhahnaa horta xogtan aad dirayso waa JSON ogow ma garateen content type waxaan dhihi doonaa colon waa application/JSON okay kaanuu naga xidhmayaa waxaan kaloo ku xijin doonaa halka xabay u dambeeyay ch comma waxaan dhihi doonaa waxaa inoo sameysaa return transfer waxaan doonaynaa API-ga markaan la hadalno xogta inoo soo celiso API-ga response-ka inaad inoo soo celiso waxaan ku dhahaynaa coralka so coralkii baan fasaxa waxaan u furaynaa response-ki inuu soo celiyo true baan dhahaynaa marka kan marka wuxuu qaataa isaga pool true ama false haddaan false dhahada waxba ma soo celinaya waxaa laga API errorkiisi iyo inuu guulaystay inuu guuldareystay inaa garan weyda hadhow intaa markaa sameyno waxaan dhihi doonaa execute curl ama sidaan oo isticmaalo variable-ka aan sameyno waxaan ku haysan doonaa waxa la yiraahdo curl execute curl execute wuxuu sameynayaa inuu rangareeyo URL-ka marka kaas way hadda waxa API-ga waxay ka dhigan tahay kan button-kan aan taabanaysa xagga ku yaala sandiga ku qoran tahay ee waxaan ka shaqaysiinaya u dhigan tahay okay so hadda aan dhihi doonaa execute waxaad execute garaysaa ch waxa way curl-ka initialize garayna markii hore soo maadan garan marka halkan waxaan ku ilownay URL-kiina u sheegna kaas waa very important sababta URL-kii aan rangareynayna waan u sheegin so URL-kana waa kan intaas aan ugu jirto so waxaan dhan haddaan dul marno waxaan sameyn doonaa intaan wax yar hoos u deji API-ga PHP oo dhan waxaa la rangareynayaa 1 2 3 4 5 6 line horta marka hore API variable waxaan sameysanay inoo haya URL-ka API-ga lagu rangareynayo okay kadib haddana waxaan sameysanay coralkii waa initialize gareynay inagoo URL-ka u sheegayna so this one function-kan wuxuu qaataa URL-ka xagga ku jira buu la hadlayaa hadhow marka intaan waxaan ku save garaysanay variable-ka la dhaho ch so mar walba u baahanaa intaan inaan isticmaalno kan baa nooga filan waaye saddex option baa sameysanay optionka koowaad waxaan dhahnaa horta marka hore body-ga qaado body-gan waxaa weeye post datadan aan xaggan ku diyaarsanay JSON-ka ah qaado body ahaan u rangarey number 2 waxaan dhahnaa body-gan markaad rangareynayso content type-kiisa waxaa ka dhigtaa JSON ahaan u rangarey so this one isagana option kale way oo coralka leeyahay waxaana dhihi kartaa http header way hada wax yar baan tusinay intaan iga wareerina xaggan kale header-ka haddaan imaan hadda halkan postman-ka halkan maxaa ku qoran content type text plain so kaameyna bedelin markii hore u maleynaya so markaad doonaysid kuwaan inaad bedeshid ka iska xir mid cusub qoro hadda xaggaa ma ka edit garay karti mugta marka content waxaan u maleynayaa inaan wax ka bedelo markii aan duubo kadib content type wuxuu qaadanayaa application JSON okay intan oo header-ka aan ku wadano oo code ahaan aan qoraynaa hadda fahma so post datadan aan wadano ee JSON-ka ah ee aan array-ga ka soo encode gareynay aan doonaynaa inaan dhahno kuralow markaad rangareynayso JSON ahaan u rangarey okay hayuu dhahay kadib waxaan dhahay waxaa markaa soo rangareysa response-ka soo noqonayana igu soo celi si aan u arkay inay saxsan yihiin iyo qaldan yihiin okay kadib markaa intaas set up gareystay waan execute gareeyay so this execution ma dhacayo waxyaabahan maaragtay functionskan wax lagu sameynayo haddii variable lagu assign gareeyo ma shaqeynayaan laakiin haddii aan ka reebo variable-ka way shaqeynayaan
So there's a reason why functions kala doonaya in la rangareeyo variable loogu xiro. Reasonka ugu weyn waxaa weeye waxa la yiraahdo inaad conditions ku xiri kartid oo aad error handle samayn kartid. waxaan dhihi karaa imika variable kan markuu shaqeeyo waxa qabo, hadduu shaqeeyo waxa samee, hadduu waxa samee inaan isaga meel kale ku isticmaalo. marka for example this one oo kale hadda meelo badan baa ku isticmaalay. So hadda variable kan execute curl kan markaan doonayna inaan kan ka shaqeysiin isaga isticmaali doonaa. way inta ay haya marka haddii imika inta aan rangareyno oo aan soo akhrino intaan koodkeena u rangareysmaya laakiin ma qurux badnaanayo. so intaan wax yar baan ku daraynaa, sidan baan ku rangareynaa si ay idinkana u fahamtaan. waxaan samayn doonaa inaan dhaho sorry xaggaan ii tirahaa print execute curl intaan tijaabinayna. so this si uu noogu shaqeeyo marka waxaan samayn doonaa inaan function kan horta marka hore aan meel geysano. function kan aan qaadayna waxaan geyn doonaa buttonka marka la taabto inuu shaqeeyo. so I hope inuu error soo bixin, laakiin waxaan sameeyo waxaan tegi doonaa pay now kan baan ku hoos qoraynaa. so haddii buttonka la taabto submitka function keeni waa la rangareynaya. so let's save that. waxaan imaan doonaa koodkeeni noo fur. telefoonka waxaan gelin doonaa numberkayga, lacagtan $1 dheh pay now. okay hadda error buu noo soo celiyey. so kan printi arki aan sameynay intaas weeye. hadda halkaan ujeedaan schema versionkii wixii xilligii la rangareeyo nagu soo celiyey. session id response codeka waa 5005. so intaan hadda u fiirsato waxay ka dhigan tahay intaan xaggan kasoo bixi jirtay. so haddii xaggan ay imaado hadda oo aan boodiga aan wax ka qalda kan variableka bedel si error u helo. intaan muujidna 5005 kan unbaa hadda la iisoo saaray. waxaan la iisoo saaray kan meeshan yar aan dhahay maaragtay print arc ay iisoo saartay. so save that again. marka hadda errorka lagu haysto waxaa weeye surface parameterska wax ka maqan yihiin wax noocaas buu dhahay. so inaan save gareyn baa laga yaabaa marka hore. so reload baan dhahayaa si uu mar labaad errorkii igu soo celiyo. way so hadda waxay ugu haystaa waxaa ka maqan APIs keygi iyo waxyaabaha mayna isticmaalin. sidoo kale xaggaan wuxuu dhahayaa warning undefined variable. variablada xaggaan ku isticmaalay API keyga user ID-ga maba jiraanba. so kuwaas aan u isticmaalo waxay igu qoran yihiin failka la dhaho credentials. failkaasaan soo qaadanayaa. waxaan dhihi doonaa include credentials.php si uu u garto xogtaas. marka haddii hadda aan reload gareeyo kaala xaggan refresh deh continue xoogaa uu daahayaa iminka. soo ma jeednin hadda already API uu shaqeeyey. telefoonkaygu kasoo saaray inaan geliyo passwordkayga. okay waxaa qaldan processkii aan time out baa dhacay. hadda ima soo gaarin dialoga meel dhexuu ku lumay ama telefoonka inaan qaldan waa laga yaaba. si aan dib ugu celiyo $1 dheh kadib pay now dheh. okay user aborted haddaanaa cancel. marka saa ujeedaan iminka API-geena uu noo shaqeynaya already, laakiin waxaa naga maqan error handlingki. waxaa la doonayaa inaad u sameysid error handling. hadda si isagoo qalalan baan rangareynana iminka. so wixii qalad ee dhaco meesha unbuu kusoo qoraya, laakiin waxba kama qaban karaya. 634 dib baan ugu celinaynaa still haddana user aborted. okay way hadda aan intaan markaa qurxino oo aan API ku xirno waxaan ku xiri doonaa error handling. marka kan inaga comment garay dhowna u baahnaa laga yaaba. waxaan samayn doonaa inaan dhaho transferka xaggan kasoo noqonaya aan doonaya inaan la soo baxo. sida ula soo bixi karaa waxaan doonayaa markaan la soo baxayo inaan helo
kan error codekaas response codekaas baan doonaya inaan helo. sababta waxaa weye response codeka waxaan dhihi karaa haddii uusan success ahayn waxbaa qaldama dheh oo u sheega userka inuu transactionka failed yahay. hadduu laakiinse successful yahay wuxuu successful ku noqon karaa 2001. hadduu 2001 yahay keliya ogolow inuu success noqdo, haddii kale waxbaa qaldan wey meelaha. so marka hore aan error codeka responseka aan soo qabsan waxaan kusoo qabsan karnaa inaan dhahno kan execute coralkii aan sameynay waxaan dhihi doonaa json decode samey. sorry xaggan d ka dhig decode. marka hore encode baan sameynay keenan baan waxaan u rognay json, laakiin hadda jasonka soo noqonaya ab ayuu soo celinaya intaan qabano aan decoding ku sameynana php u bedelayna variable caadi. okay sorry waxay noqonaysaa ka inaan bedelo horta return data u bixi karna xogta soo noqonaysaa return data waxay la mid tahay coralkii aan execute gareynay oo true laga dhigay. okay marka uu noo decode gareeyay hadda kan hadda wuxuu noo wadaa php array oo waxaan jasonkii baan decoding ku sameynay kadib php array aan u bedelnay. so php arrayda laftarkeedaan u baahannahay inaan datadeena xabad xabad uga soo saarano. kan u horeeyaan u baahannahay response code. response codeka wuxuu noqonayaa arraygan hadda aan decodingka kaga sameynay jasonka return data inaan dhex galo kadib aan dhaho response code. hadda marka kan wuxuu iisoo celinayaa intaan mujeedaa response codekan meesha ku dhex jirtay calaamadan quotationadii waxaa ku dhex jirto keligeed uu soo dhex qabanaya oo kasoo dhex saaranaya. okay so marka haddii iminka aan dhaho echo response code oo aan intaas save gareeyo, haddii hadda aan refresh gareeyo pagekan waxaan dhan ma iisoo baxayaan, keliya waxaa iisoo baxaya 5206ka ama wixii kale error codeka saxda ah. okay wuu wadaa hadda. okay hadda ma jirta 5206 bes baa iisoo baxay, marka waxaan soo saartay codekeenii response codeka ah. so kan way kan haddaan conditionka ku xidhaynay aan error handling ku sameynayno. marka ma doonayn inaan echo gareyno waxaan dhihi doonaa if baan sameynaa condition cusub. haddii response codekeena uu la eg yahay 2001 oo success way micnaha waxaa sameysaa howshaas qabo. haddii kale uu la mid ahaynna wixii kale kasoo haro dhan that means wixii waxbaa qaldan anyone uu ahaado. hadduu qofka bankiisa khaldo, haddii lacag ugu jirin, haddii uu cancel gareeyo wax kasoo haro dhan xagaabaan gelinaynaa. iminka ma doonaya inaan sii kala qaadno, kaliya inuu guulaysto iyo inuu guuldareysto baan u kala dhigaynaa. xaggan waxaan ka dhigi doonaa inaan dhaho payment status wuxuu la mid yahay okay successful. hadda qoraal ahaan buu u gelinayaa stringka. haddii kalena waxaa tirahaa payment statuska wuxuu la mid yahay failed. marka intaanaan doonaya databaseka inaan geysano si aan u kala xaqiijino paymentka inuu successful yahay inuu failed yahay. ma garateen hadda codekeeni muhiimadiisa intaas buu la eg intaas muhiimadiisa noqonaysaa. marka hadda muhiimadda waxaa weye waxaa kaloo doonayaa kan inaan soo qaado. kan waa paymentkii functionkii save gareynayo. so the problem now is haddii aan intaan rangaray laba waxba iisoo baxay, marna wuxuu save gareeyay waad guulaystaan wuxuu ka wadaa databaseka uu geynayaa, marna errorkii iisoo saaray. so kan baan doonaya inaan ka qaado meesha oo aan dhaho lacagta markii la bixiyay kadib save garey datada. so kan iisoo qaad. so the reason functionska ku fiican yihiin waxaa weeye kaa hadda markaan qaado savingkeeni oo dhan baa soo qaatay. savingkii baa laba nooc u kala dhigaynaa. marka gawdhe labada nooc u kala dhigayna wuxuu noqon doonaa marna markuu failed noqdana sibuu u save gareynayaa, markuu successful noqdana sibuu u save gareynayaa. kaliyana waxay ku kala duwanaanayaan labadan, marna failed way marna successful way, marna successful way marna waa failed. so waxaan doonayaa marka variablekan inaan xaggan u baas gareeyo, xaggan baan ku qaadanaya. waxaan dhihi doonaa payment statuska ii qaad.
sababta hadda payment status kan xagan lagama yaqaano meeshan la yiraahdo pay now new payment-iga lagama yaqaano so waa inaan keenaa marka aan dhaha payment status ii keen halkaas so hadda wuxuu sameynayaa function kan waxaa barateen iminka wax cusub oo la dhaho argument-iga sida function-ka loogu qaado marka hadda marna successful buu soo qaadanaya marna failed buu soo qaadanaya depends on xaaladda sidee tahay soo qaadan xagan ii keen so labadan markasta ma wada dhacayaan markasta mid un baa dhaci karo haddii kale impossible way ama kan baa run noqonaya true noqonaya la sameynaya ama kan baa true noqonaya la sameynaya okay marka waxaan doonayaa inaan halkan ku darsado amount paid ka database inaan ku daro database kan kasoo eegan horta siduu ekaanaya payment SDB and transaction iska fur wuxuu ekaanaya payment status kaas baan doonaya hadda inaan keeno marka payment status buu noqonaya halkaana mid cusub ku dar marka variable-ka hadda halkaan aan ku darayo waa kan aan kusoo qaatay argument-iga function-kaas wuxuuna ka imaanayaa condition-kan ku xirna haddii payment-igu sax yahay hadduu qalad yahay okay intaan noo save garay halkaan maraan dusha aan dul marno waxaan dhahay API-gan response code-kiisaan soo qaadanay hadda wuu noo yaala waxaan dhahay marka response code-kan hadduu 2011 la mid yahay 2001 la mid yahay that means payment-ka waa successful and successful ka dhig variable-kan kadibna new payment samee xogtan hadda samaysatay ee successful-kana asaga hasii qaato markuu qaato halkaan la yimaado argument ahaan usoo qaato kadibna halkaan ha geeyo oo ha igu save garay database-ka very simple that's why functions-ka markaa isticmaalaysa la beginner tahay aad iyo aad ku caawin karto ma garateen hadda markaan tijaabino I hope inuusan error nagu iman waxaan sameyn doonaa 63 muhiimaddu waxaa weeye ii sheeg in horta xogtan ee gasha database-ka hadda uu wareeganaya okay hadda hal xabaa soo baxay waad guulaysatay that means database-kii wuu keenay hadda imika refresh dhaho hal xaba wuxuu keenay failed that means way fail garooda payment-iga may gelin markaan hadda telefoonka lacag la-aan ma gelin karayo marka failed bis soo gelinaya laakiin hadduu successful noqdo successful buu qoraalkaas buu qaadan lahaa sidoo kale waxaan u baahanahay kan response API message-ka inaan asagan database-ka keenno very simple way kanaan koobiyeysanaya response-kii kasoo noqonaya API-ga code ma raba hadda message baan rabaa okay API response message baan doonaya ka marka response si aan u ogaado xagaan kasoo eeganaya response MSG buu noqonaya intaan soo koobiyay xagaan inoo keen so response message-kina waan haystaa hadda waxaan u baahanahay response message-kan isaga laftigiisana inaan xagaan ku qaato si aan database-ka u geeyo okay xagaan ii kaalay waxaa tirahaa ku dar mid kale haddaan soo qaadanay okay dhan kadib xagaan ku dar database-ka si uu galo paste dheh calaamadda yar ka reeb halkaan markaad joogto okay saa u soco okay waxaa igala qasan okay halkan API payment status command dheh waxaa tirahaa response message igeli halkaas waan save gareynaynaa marka now okay I hope this works then so si aan u tijaabiyey page-kiga refresh dhaha continue dheh waan sugeynaa waan kansalayaa jida kaas uu ku dhagaa umaleynaya caadi aa u gelinaya sugpa pay now okay hadduu soo noqday waad guulaysatay waxay ka dhigan tahay macnaha database-kii bay xogta ku gashay hadda browser dheh
laba xabo uu noqday waliba kii hore inuu shaqeeyay kana failed uu noqday kana xogtii wuxuu isoo saaray API kasoo noqoto rejected macnaha userka reject gareeyay marka waxaa ku ogaan kartaa kan sababta lacagta u bixi weysay qofka dhawaa u sheegi kartaa hadii kartaa adaa cancel ay ka qaldanta ku celi ama lacag kuma jirto akoonka anything uu qofka sameeyo so marka this one wuxuu yahay gabagabadii casharkeena wax kasta hadda waan kusoo wada dhamaystirnaa xaggan waxyaabaha cusub ee barateen maanta waxaa weeye functions kala dhaho random oo lagu regenerate gareeyo random numberska waxaa kaloo barateen function kala dhaho curl ama curl init oo lagu initialize gareeyo marka la doonayo curl cusub in la sameeyo waxaa kaloo barateen function la dhaho json encode oo lagu encode gareeyo arrayga php looga dhigo json iyo mid kaloo looga soo celiyo jsonka oo lagu soo celiyo array php isaga la dhaho json decode marka decode iyo encode bay kala noqonayaan labadaba isla shaqeynayaan waxaa kaloo barateen in curlka uu sii qaato functionka la dhaho setup oo loogu sheego waxyaabaha dheeraadka ee uu u baahan yahay API-ga so inaga saddex baan isticmaalnay qaar kaloo badanna way jiraan laakiin kuwan hadda waxay noqonayaan inaan u sheegno inuu body qaato header inaan u sheegno iyo inuu noo soo celiyo API-ga wixii kasoo noqdo response ah oo true aan ka dhignay kadib markuu true-ga noo sameeyo noo soo celiyey waan qabanay decoding baan ku sameynay kadibna waxaan kasoo saaranay response code-kii iyo response message-ka data response code waxaan u isticmaalnay inaan condition ku xidhno error handle-na haddii uu 2001 la ekaadana successful ka dhig hadduu la ekaan waayana failed ka dhig payment so this one halkan wuxuuna dhahayaa marka paymentkii xaggan baan ku sameynaynaa so markii hawshaan dhacda kadib unbaa database-ka gelinaynaa xogta haddii paymentka uu successful noqdana waxaa galaya midkan hadduu failed noqdana midkana galaya labadan mar walba sax ma wada noqon karaan mid unbaa true noqon kara sidoo kale waxaa ogaatay maanta in functionska aan samaysan arguments lagu dhex qaadan karo si datada la isku dhex dhaafiyo dhowr function oo kala duwan so hadda waxaan soo qaatay oo xaggan kasoo xaday payment statuskii iyo response messagekii oo API soo celiyey waan soo qaatay ayar xaggan baa la imaaday functionkeygii kale kadibna databasekan ku ritay labada si loo helo meel tixraac laga heli karaa dhow wixii qaldamay marka I hope inaad ka faa'iidaysteen kooraska casharkan dad badan baa isoo weydiiyey marka haddii uusan adiga ku qancinin ama aad haysan API key waxaad samayn kartaa inaad soo raadsato oo aad ku tababarato haddii aa weydana casharo badan waxaan soo wadaa beginner ah ama uu kugu adkaado oo aad la qabsan karto marka waxaan doonayaa inaad qaybta commentiga la wadaagtaan siduu ahaa qaabkan u dhigay haddii ay jiraan waxyaaba iga qaldan haddii aan boobsiinayo haddii aan gaabinayo haddii aan conceptska aan cusub idinku badinayo la wadaaga si aan casharada dambe aan soo wado aan uga fiirsado waxyaabaha qaladaadka insha Allah so I hope inaad ka faa'iidaysateen alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu casharada dambe waxay salbaan rajeynayaan inaad ka qayb qaataan fi share gareeyaan casharada si dad badan ay u gaaraan like tan haga ilaabina aad baa u mahadsantiin bye bye